السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلو هذا عشر هذه الامتحانها هي برشاد اللقادة بايثون يا كل ساعتين جنرالك سي ار ورسمي waxaan rabaa maanta inaan idin diro shaqo dabcan programmingka waxaa lagu bartaa inaad gacanta ka qabatid yaa wixii samaysid haddii aad iska daadaawato casharadan oo ay kula qurxoodaan oo meel kale mid kale aad ka akhriso buug aad ka akhriso internetka waxa macnaa ma samaynayaan ilaa adigu aad aadid oo gacanta aad ka qabatid waxaan rabaa marka fikradaha loobisku waxay ka mid yihiin waxyaabaha logiga iyo fahanka programmingka meelaha ugu muhiimsan ee qofku ay tahay inuu si fiican ay ugu fariistaan marka uu baranayo marka ilaa aad qortid oo isku dayid oo qaladid oo raadisid oo ku celisid oo bedeshid dabcan ma baranaysid haddii aad rabtid inaad si fiican aad meel u saartid waxaan rabaa marka inaan idin diro shaqo inaan idin diro ama layli ama exercise ama challenge wixii aan dhahnaba waxaan soo aragnay loopkeennii haddii aan isxasuusino sidan ayuu ahaa syntaxkii guud aan isticmaalaynay variable counter ilaahan abuuranaynay initializationkiisii ka bacdina conditionkii iyo update statementigii wixii lagu celcelinayana halkan ayaan dhigaynay waxaan rabnaa marka waxaa hore u soo aragnay tusaale sidan oo kale ah oo xisaabinayay shaqaale lacagta uu qaadanaya ama lacagta uu ku shaqaynayo haddii aan isku dayno programkan inaan fiirino wuxuu leeyahay kow waxaa soo gelisaa saacadii aad shaqaynaysay wuxuu ku xaraynayaa variablekan waxaa soo gelisaa lacagtii aad qaadanaysay wuxuu ku xaraynayaa variablekan labadoodu isku dhufanaya waxaa kasoo baxaya halkaas lacagtii uu qofkan bishaas ama isbuucaas ku shaqaynayay wixii ay noqon lahayd gross pay ayaa la soo daabacaya haddii aan dhaho programkan ii execute garee ama ii run garee wuxuu ku leeyahay saacadii aad shaqaynaysa soo geli waxaan dhahay tusaale ahaan 20 saac ayaa shaqaynayay kabacdi waxa uu dhahay saacadii meelaha ku shaqaynaysay $7 ayaan ku shaqaynayay 7 ilaa 20 isku dhufan doonaa $140 ayaa leedahay ayuu leeyahay sida ku muuqanayso waxaan rabnaa halkan marka in uu xisaabiyo 3 shaqaale in uu xisaabiyo mushaarkoodii maxay noqon lahayd marka inaan intaan qaadno oon koobiyeyno oo haddana koobiyeyno sidaas ma rabno marka waxaan rabnaa annagoo loobis ka faa'iidaysanayno 3 shaqaale in uu xisaabiyo programkeena oo uu dhaho shaqaalihii koobaad intaasuu qaadanaya shaqaalihii marka waa fududaynaynaa dabcan ku celcelintu waa iska fududahay haddii aad syntaxkan soo qaadato intii hadda aan soo qaaday haddii halka dhigto afarta sirda halka dhigto isku si u shaqaynayaan waxaan rabaa marka kaliya si aad xoogaa u shaqayso meesha uu soo qorayo gross pay is waxaan rabaa inuu soo qoro sidan oo kale EMB1 ama employee 1 shaqaalihii koobaad gross pay is kabacdina uu sheego tusaale ahaan 140 uu idho kii labaad sidan oo kale uu sheego employee 2 uu idho markuu sheegay marka waxaan rabnaa marka meeshaas waa tan ugu leeyahay employee 2 ina marka employee 1 employee 2 employee 3 employee 4 waxay ay yihiin tiradooda ina saas oo kale isu daacaan rabnaa 3 shaqaale ayaan ku baroobay ku dhahay haddii aad rabto 5 waa ka dhigi kartaa hadhow number bis ayaa bedeli doontaa marka waxaan rabaa inaad outputka qaabkan usoo saarto employee 1 gross pay lacagtiisa intay ahayd employee 2 gross pay lacagtiisa intay ahayd employee 3 gross pay lacagtiisa intay ahayd kow laba saddexdaas inaa ii kala xisaabiso ayaan rabaa outputka marka sidaas oo kale ayuu noqonayaa haddii aan ku tuso wuxuu noqonayaa sidaan oo kale kasoo qaad shaqaalaha koobaad wuxuu shaqeeyey sidii hadda aan soo aragnay 20 saacadood iyo saacadii $7 ku shaqaynayay shaqaalaha labaad waxa ka soo qaadaa inuu shaqeeyay 20 saacadood saacadiiba $8 inuu ku shaqaynayay ka soo qaad 140 meesha maxay noqon lahayd waxaan u maleynayaa 160 inay noqon lahayd shaqaalaha saddexaad wuxuu shaqeeyay ka soo qaad 20 saac isagana $6 inuu ku shaqaynayay ka soo qaad waxaan leenahay isagana $120 ayuu shaqaynayay waxaan rabaa marka output sidaan oo kale ah comments waa hadda laakiin comments marka ka bixiso output sidaan oo kale ah inuu ii soo saaro hadhow laakiin isagoo dabcan shaqaalihii koowaad soo geli macluumaadkiisa kii labaad soo geli kii saddexaad soo geli sidaas oo kale adiga oo u process garaynayo intaan aad ku celcelinaysaa laakiin kaliya outputka ayaan rabaa in uu qaabkan u soo saaro laakiin soo geli saacado soo geli pay rate iyo waxaas oo dhan sidooda ay ku ahaan karaan marka waxay noqon kartaa xoogaa yar inaad ku practice garayso skillskii iyo wixii yaraa aan soo qaadanay intaas ayaan idinka sugayaa hadduu alla labada maalin ay soo socoto kabacdi waxaan soo gelin doonaa casharadii kale noo xigay waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh